السلام عليكم soo dhawaada asxaabta ku xiran channelka Dacwo Tube kuna soo dhawaada qisadan aad ku xanuunka badan balse inteenan bilaabin qisadeena fadlan like saar oo nadareensiin aad ka heshay muuqaalada noocan oo kala ah sidoo kale hadii aad ku cusubtahay channelka Dacwo Tube fadlan ku soo biir oo subscribe taawo hooyadan waxay wada noolaayeen iyada iyo wiilkeeda oo kaliya balse hooyadu way ka duwantay hooyooyinka kale oo waxa ay tahay hooyo ku shaqeysata taxi markii la gaaro waqtiga laga soo baxay iskuulka waxay aadi jirtay iskuulka si ay wiilkeeda ugu soo qaado gaariga laakiin maalin maalmaha kamid ah hooyadu waxay aragtay diyaarad hawada sare maraysa markaas ay hooyadii tiri goorma ayaan ku duuli doonaa aniga iyo wiilkeyga diyaaradan oo kale maalinkii koowaad wiilku waxa uu la yaabay waxa ay hooyadiisa ku labisatay hooyadii waxay ku tiri wiilkeeda inakeen maanta waxaan aadi doonaa Faransa soo kor gaariga hooyadu waxay ku sawirtay daaqadaha gaariga sawiro u eg inay dhex joogaan Faransa maalinkii labaad hooyadu waxay diyaarisay sawiro ku saabsan Japan wiilkeedii waxa uu ka soo baxay madrasada isagoo aad u faraxsan hooyadii waxay siisay wiilkeeda waxa uu ku sii ciyaaro inta laga tagayo guriga sidoo kale daaqadaha gaariga waxay ku sawirtay sawiro quseeya Japan hooyadu waxay ahayd mid har iyo habeen shaqeysa si wiilkeeda horumar u gaaro waxayna habeenkii u toli jirtay dharka sidoo kale waxay u keeni jirtay baraf iyo qalabka lagu dabaashto wiilkan waxa uu ahaa mid aad ugu faraxsan waxay hooyadiisa u keentay maalin maalmaha kamid ah wiilkii waxa uu ka soo baxay madrasada isagoo aad u faraxsan oo rajeynaya inuu raaco hooyadiisa laakiin ma uusan helin hooyadiisii sugi jirtay hooyadii waxa ka halaabay gaariga waxaana saarnaa rakaab ay waday hooyadii waxa uu hagaagay gaariga rakaabkiina waxa ay geysay meeshii ay rabeen hooyadii waxa ay fiirisay saacadii waxayna ogaatay inay wiilkeeda ay ka daahday iyo in aysan u diyaarinin sheeyo cusub oo ay ku farxad gelinayso wiilkeeda hooyadu waxay bilowday inay si degdeg ah ugu fikirto waxa ay wiilkeeda ku farxad gelin lahayd waxay aaday meel u dhoweed oo bacaad badan leh gaariga ayayna ka soo buuxisay sidoo kale waxay ku sawirtay daaqadaha gaariga sawirada ay caan ku tahay Masar iyo kuwa faraacinta waxayna aaday wiilkeeda markii ay u timid waxay aragtay wiilkeeda oo careysan waxayna furtay albaabka gaariga waxayna ku tiri wiilkeega soo kor gaariga si aan u aadno wadanka Masar wiilkii ayaa ku qoslay waxay hooyadiisa u sameysay maalmihii ayaa tagay hooyadii iyo wiilkeedna waa ay weynaadeen waatan hooyadii oo daawanaysa TV waxa u yimid wiilkeeda waxa uuna arkay hooyadiisa oo oranaysa goorma ayaan hawada ku safri doonaa wiilkii ayaa durbadiiba bilaabay inuu ticket u soo jaro isagii hooyadiisa qaab online ah daqiiqado kadib hooyadu waxay dareentay in qof taagan yahay albaabka markii ay banaanka u soo baxday waxay aragtay wiilkeeda oo u taagan banaanka
oo gacantana ku haysta 2 tikidh oo u diyaariyay inay ku safraan isagii hooyadiisa si uu u rumeeyo hamiga hooyadiisa oo ahaa in mar uun ay ku safarto hawada. hooyadii waxaa ka soo daadatay ilin waxayna u soo dhaqaaqday dhanka wiilkeeda. waxaa jira xadiis laga warinayo suubaneena Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaasoo uu ka warinayo Ibnu Cabbaas waxa uuna leeyahay عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. jannadu waxay ku jirtaa lugaha hooyooyinkiina hoostood. macnaha jannada oo dhan waxaa kaa xigta haddii aad muslim tahay inaad hooyada u baarinimo samayso, hooyada daryeel, sidoo kale aabahaaga daryeel haddii aad janno doon tahay. fadlan la wadaag muuqaalkan asxaabtaada si ay ugu cibro qaataan. sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelka Dacwa Tube fadlan ku soo biir oo subscribe saaro. waa anigoo ah Zaki Maxamuud oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله على الإسلام أكبر نعمة من الهادي الحمد لله أمن سلام تنعم فيها رب بلادي الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله مع الأذكار نرددها مساء وصباح الحمد لله وفي الأسحار مع استغفار بكل دعاء الحمد لله دوم وأبد الحمد لله بقبل وبعد الحمد لله دوم وأبد الحمد لله بقبل وبعد الحمد لله بها ترتاح رزقك الله ببيت الحمد الحمد لله بها ترتاح رزقك الله ببيت الحمد الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح رزقك الله ببيت الحمد الحمد لله بها ترتاح رزقك الله ببيت الحمد الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب
بتراح. الحمد لله الحمد لله على الأفراح، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان، الحمد لله الحمد لله.